السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركة للسود وهذا أدي هذا ومهد سنتهين مانتا وأربعة وانا لبي طبانك بشا سيديداد أغسطس سنة كاللبضة كون إيا اللحية اللباتنك مقال كان وحربا إنا ندو كل وذاقه وزارة عدالة مريكنك أو كودا واقضي lacago la siinayo magaalooyinka ogolaada inay la shaqeeyaan ciidamada ICE iyo wasaaradda amniga gudaha kalana shaqeeyaan soo qabqabashada iyo masaafurinta dadka sida sharci la'aanta ah ku jooga Mareykanka. Arrintaasi waan idinla wadaagayaa iyo sidoo kale ilaa iyo hadda Mareykanka imise qof ayaa ciidamada ICE ay ka masaafuriyeen imise ayaana si iskooda isku masaafuriyeen sidoo kale waan idinla wadaagayaa. Wasaaradda arrimaha dibadda oo iyaduna ku dhawaaqday tirada inta ay leeyihiin dadka viisayaasha laga laabtay dadkaasina maxaa lagu eedeeyayna sidoo kale waan idinla wadaagayaa. Madaxweyne Trump oo qirtay in bishii hore shirkii NATO markuu dhamaaday kadib si qarsoodi ah looga soo qaaday dalkaasi Turkiga muxuu arrintaasi ka yirina sidoo kale waan idinla wadaagayaa. dhinaca gobolka Wisconsin doorashadii gudoomiyaha gobolka loogu jiray tartanka oo uu ku soo baxay musharax madoowa dhinaca xisbiga dimuqraadiga haweeney dhinaca socialistigana looga adkaadayna sidoo kale waan idinla wadaagayaa. balse marka hore soo dhawaada. waxaan ognahay madaxweyne Trump ilaa iyo markii uu xilka la wareegay in uu waday ololaha qabqabashada iyo masaafurinta dadka sharci la'aanta ah. haddaba wasaaradda cadaaladda ayaa waxa ay ku dhawaaqday barnaamij loogu magac daray Bridging Immigration Related Deficit Experience Nationwide oo Biden loo soo gaabiyo magacii Biden ayay qaateen. barnaamijkaasi waxa uu yahay marka oo looga goleeyahay in magaalooyinka la shaqeeya ciidamada ICE iyo wasaaradda amniga gudaha la siiyo lacag $3 bilyan oo dollar ah. waxaan ognahay magaalooyin fara badan oo dimuqraadiyiin ah oo sanctuary cities la yiraahdo ayaa waxa ay diidan yihiin in ay la shaqeeyaan ciidamada ICE isla markaana ay kala shaqeeyaan qabqabashada dadka sharci la'aanta maxaa yeelay magaalooyinkaasi waxa ay xaq u leeyihiin in aysan immigrationka la shaqeynin. sidaas darteed lacagta $3 bilyan magaalooyinku maxay ku falayaan? magaalooyinku lacagtaasi $3 bilyan ah waxay ku shaqaaleysiinayaan ciidamo boolis cusub oo ICE la shaqeeya sidoo kalena waxa ku gadanayaan teknolojiyad sida diyaaradaha droniska oo kale waxayna ku dhisayaan xarumo si ku meel gaar ah loogu xiro dadka ay booliskaasi soo qabtaan inta ciidamada ICE ay kala wareegayaan meel ay ku sii hayaan ayay ku dhisayaan. marka lacagtaasi waxa ay soconaysaa ilaa iyo September sanadka 2018. marka wasaaradda cadaaladda waxay leedahay ilaa iyo 181 application ama codsiyo ayaan helnay 30 maalmood ugu horeeyay marka aan lacagahaasi soo bandhignay. marka magaalooyinkii sida muuqata hadda diyaar ayay u yihiin ICE iyo wasaaradda amniga gudaha in ay la shaqeeyaan isla markaana lacagahaasi $3 bilyan oo wasaaradda cadaaladdu ay u ballan qaaday inay siinayso magaalooyinkaasi in ay qaataan. hadda ciidamada ICE marka waxa ay bedeleen qaabkii ay u shaqeyn jireen. markii hore iyagoo kumanaana ayaa waxa la dhihi jiray magaalo hebel ayay tagayaan. hadda sheekadii waxa ay ka dhigeen sheeko lowkii ah targeted operation wax la yiraahdo ayay hadda sameynayaan. sidii hore hal mar magaalo kuma duulayaan sidii ka dhacday Minneapolis iyo St Paul oo kale. marka weeraro bartilmaameed ah ayay sameynayaan dadka gaar ahaan kuwa hadda TBS ay ka dhacday sida Haitiga iyo Syrianka iyo ayay bartilmaameedsanayaan. marka waxa ay ku dhawaaqday wasaaradda amniga gudaha tirada dadka la masaafuriyay iyo kuwa la soo xiray ilaa iyo Trump markii uu xilka la wareegay. marka ilaa iyo 22 January ee sanadkii 2025 maalinkii markii madaxweyne Trump la dhaariyay ciidamada CBP waxay soo xireen ayaa la leeyahay ilaa iyo hadda 464,536 qof halka ciidamada ICE ay soo xireen 635,690. marka dadka la masaafuriyay ilaa iyo January 22 sanadkii 2025 ICE waxay masaafuriyeen 763,788. dadka iyaguna iskood isku masaafuriyay waxay yihiin 444,966. guud ahaan marka la isku daro marka dadka Mareykanka laga masaafuriyay ilaa iyo Trump markii uu xilka la wareegay 1,484,574 qof waayo. marka waa dad 1 milyan iyo bar ku dhow. marka ICE hadda waxa ay bartilmaameedsanayaan dadka heshiyaanka ah oo lugta uga xiran yahay GPS ka dhaqdhaqaaqooda lagula socdo. dadkaasi waxyaabaha aysan samayn karin waxaa ka mid ah oo GPS-ka uu ku xiran yahay in ilaa iyo 75 mayl oo isku wareega aysan dhaafi karin ilaa iyo 120 kilomitir
ogolaansho la'aan kama bixi karaan maxaa yeelay haddii ay dhaafaan 75 mayl oo 120 kilomitir u dhiganta bilaa fasax la'aan waxaa qaylinaya GPS kaasi lugta ugu xiran sidoo kalena waxyaabaha aysan samayn karin waxaa ka mid ah in ay gooyaan amaba aysan tagin balamaha ICE ay la leeyihiin ayadana sidoo kale waa qasab inay tagaan waxyaabaha kale oo aysan samayn karin waxaa ka mid ah in gabi ahaanba ay iska furaan GPS kaasi lugta ugu xiran oo dhaqdhaqaaqooda lagala soconayo ama sidoo kalena ay damiyaan arrimahaasi oo idilba ma samayn karaan waxyaabaha marka ay samayn karaan waxaa ka mid ah inay soo codsadaan dadkaasi si iskooda inay isku masaafuriyaan isla markaana dowladdu ay siinayso lacag $2,600 inay Mareykanka ay ka tagaan tikidkiina loo jarayo dadkaasi hadhowdi si sharciya ay wadanka ay ugu soo laaban karaan marka hadda waxa ay wasaaradda amniga gudaha leedahay qofka sharci darada Mareykanka in uu joogo waxaa ku baxaya sanadkii ilaa iyo $9,000 Mareykanka laakiin qofka haddii ICE ay masaafurinayaan ilaa iyo lacag $2,400 ka badan ayaa ku baxaysa haddii marka qofku iskii isku masaafurinayo isaga ayaaba lacag $2,600 la siinaya haddii ICE ay masaafuriso wadanka mardamba dib uguma soo laaban karo laakiin haddii isagu ismasaafuriyo qaab sharciya wadanka dib waa ugu soo laaban karaa sidoo kalena wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxay sheegtay ilaa iyo Trump markii uu xilka la wareegay inay fiisiyaasha kala laabteen 175,000 oo qof dadkaasi waxay yihiin kuwa kufsi lagu eedeeyay afduub lagu eedeeyay ka ganacsiga bini'aadamka lagu eedeeyay caruur inay faraxumeeyeen sidoo kale lagu eedeeyay musuqmaasuq dhinaca caafimaadka ee Medicaid-kana inay sameeyeen iyagana sidoo kale lagu eedeeyay waxaa jirta marka hadda madaxweyne Trump markii ku dhawaad 2 toddobaad ka hor uu saxiixay in wareegtooyinkii la xiriiray dhalashada loogu magac daray dhalashada dalxiiska oo haweeneydu iyadoo uur la oo dhal rabta Mareykanka inta ay imaato ujeedkeedu uu yahay ilmahaasi Mareykanka markay ku dhasho inuu muwaadin Mareykan noqdo oo madaxweynuhu gabi ahaanba uu mamnuucay waxa la leeyahay safaarad ku taala waqooyiga Afrika ayaa hadda waxay viisayaasha kala laabatay ilaa in ka badan 100 qof oo iyagu viisa noocaasa oo birth tourism-ka doonaya Mareykanka inay ku yimaadaan marka waxay wasaaradda arrimaha dibadda ay sheegtay qof kasta oo loo arko oo dumar ah oo uur leh in uu doonayo in ilmo uu ku dhalo Mareykanka visa lama siin doono arrintaasi hadda kadib waa la mamnuucay marka arrintan waxay tahay arrin muhiim ah dhinaca kalena doorashooyinkii ka dhacay gobolka Wisconsin dhinaca dimuqraadiyiinta ayaa tartan xoogan ka jiray haweeneyda la yiraahdo Francisca Hong oo horay baraheeda bulshada qoraallo ay u soo gelisay si weyn loogu dhaliilay oo kamid ahayd Thanksgiving-ka gabi ahaanba in la kansalo ayaa laga guuleystay waliba cod isku dhow ayaa waxaa helay iyada iyo waliba David Crowley haweeneyda waxay 39.4% codadkii isaguna 39.8 ayuu helay 3,211 cod ayaa u dhaxay sida darteed dhinaca dimuqraadiga waxa uu tartami doona November gudoomiyaha gobolkaasi David Crowley oo taageeray gudoomiyaha gobolka ee hadda xilka ka sii degaya waxaana ula tartami doona Tom Tiffany oo Trump uu taageeray November marka la gaaro ugu dambeyntii madaxweyne Trump waa anigii maalmihii u dambeeyay aan ka hadlayay qaabkii qarsoodidaha ee Turkiga looga soo saaray kadib dhamaadkii shirkii isbahaysiga NATO bishii hore horaanteedii madaxweyne Trump ayaa xalay warbaahinta si cad ugu sheegay in arrintaasi ay jirtay waxaana uu yiri amarka anigu waxaan raacayaa markasta ciidamada Secret Service-ka iyo waliba ciidamada militariga waxa la weydiiyay marka maxaa khatar loo geliyay wariyaasha iyo wasiirada diyaaradda kale oo aad ka degtay saarnaa marka waxa uu yiri diyaaradda anigu aan raacay ayaaba ka khatar badnayd maxaa yeelay waxa uu yiri diyaaraddaasi Air Force One waxay u samaysan tahay in gantaalada qaar ay iska difaaci karto marka waxa la leeyahay sirdoonka Mareykanku waxay heleen xog muujinaysa in gantaalada garabka laga tuuro la doonayo diyaaradda madaxweynaha in lala beegsado laakiin waxa la leeyahay wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka maaliyadda oo diyaaradda wariyaashu ay saarnaayeen oo madaxweynuhu uu ka degay saarnaa waa ay ogaayeen madaxweynuhu inuusan diyaaradda saarnayn laakiin wariyaashu gabi ahaanba ma aysan ogeyn bal waa kan madaxweyne Trump oo qiranaya in arrintaasi ay ahayd amar ka yimid ciidamada ilaaliya madaxweynaha ee Secret Service-ka iyo waliba ciidamada militariga I didn't really ask too much about it. I get a lot of threats. I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety. I think actually the plane that I flew on was at greater risk. I think it was at greater risk because that would be the plane I think that they would be more likely to go for. dhinaca kalena xubnaha Congress-ka ayaa waxa hadda ay dalbanayaan in aqalka cad
uu warbixin ka siiyo sida arrintaasi ay ku dhacday, khatarta madaxweynuhu uu wajahayay ilaa iyo intay la ekeed, maxaase khatar loo geliyey xubnaha wariyaasha ah ee diyaaradda madaxweynuhu uu ka degay saarna. Richard Blumenthal oo laga soo doorto Connecticut ayaa waxa uu sheegay in aqalka cad looga baahan yahay Kongareeska inay u caddeeyaan khatartaasi inta ay la ekeed, haddii ay jirtayna maxaa khatar loo geliyey wariyaasha iyo wasiirada diyaaradda madaxweynuhu uu ka degay saarna. waa kan Richard Blumenthal oo arrintaasi ka hadlay. I want to know what precautions were taken to make sure that all of the passengers on that Air Force One, which was judged too dangerous for the president to fly on, what precautions were taken to keep the staff and reporters on that plane safe. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta, intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkeen Cilmi Waaro idin la sidaa iyo nabadgelyo.